bisha qeyraysan mar walbo intii ka dhiman mar walba ku duceyso in Ilaahay nabad iyo caafimaad ku gaarsiiyo. haddii Ilaahay ku gaarsiiyo bisha Ramadaan oo la afuriyo miskiinta oo waxba haysanin oo sooman ad afurisid, haddii Ilaahay wax uu ku siiyo tacaala asaal xisaabtama hadhow uu qaleenayo soonka dib ayuu ka qaleenayaa. laakiin qofka Ilaahay caafimaad siiyo soonka بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله أقياري وولالكينا عمر سو دوادا مقال عصب وقصابسان بشهر رمضان. runtii bisha Ramadaan waxa ka dhiman ayaa iska yar hadduu Ilaahay ma yadhihin. alxamdulilah khayrkeedana Allah na rajayn doonaa dhammaantiin intii muslim ah ummadii Nabi Maxamed ah inay isku diyaarin doonto soonka bisha Ramadaan. bishan waa bish aad u muhiimsan. waxaa laga yaabaa horta maanta waxaa laga yaabaa bishan naftirkeed iyada ah inaa mataqaanaa qof waliba oo ku haminayo bisha qeyraysan oo Ramadaanka ah inuu Ilaahay waqtigiisa u gaarsiinin oo waqtigiisa uu meesha ku ekaado ama Ilaahay oofsado. markuu ugu horeyso ducada hala badsado bisha inta ka dhiman Ilaahay subxaanahu wa tacaala Ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo. qof walbana oo xanuunsan oo bisha ku haminayo oo bisha Ramadaan inuu soomo Allah xanuunka ka qaado, Ilaahay caafimaad khayr qabo ha siiyo. intii caafimaad qabtana oo Ilaahay nabad ku gaarsiiyo waa jaanis ayay tahay, jaanis oo aad u muhiimsan ayay tahay. jaaniskan waa inaad ka faa'iidaysatiin. nafsadeyda waxaan farayaa iyo nafsadeyna waxaan farayaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo dambigeena iyo dunuubteena dhaafo. runtii waxaan waa adduunyo, waxaan waa maalmo. bishan qeyraysanna qof walba ha isku diyaariyo. bisha intii la gaarin muslimiin afka ay ka sheegtaan, muslimiina nahay afkay ka sheegtaan, waayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu arkayaa wixii xumaan aad sameynaysid, wixii dunuub aad sameynaysid Ilaahay wuu kuu jeedaa. atid raqiib ayaa garbahaaga saaran. ilaahayna lama aha Ilaahay lama aha mataqaanaa inaa nafsada hal mar inuu kaa qaado wuu awoodi karaa. ilaa koonkan ifkan asagaana keenay, Ilaahay subxaanahu wa tacaala keenay. marka walaalayaal run ahaantii waxaan jeclaystay inta i daawanayso oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad ka cabsatiin meel walba aad joogtiin, waayo bishan waa bisha qeyraysneed. bishan waxaa waaye bisha mataqaanaa dunuubtaada iyo dembigaaga dhan lagugu dhaafi lahaa waaye. bil aad u fiican u qeyraysan. bishan haddaad ka faa'iidaysan weyso adigoo 20 jir ah misna adigoo caafimaad qabo adoo xanuunsaneen cudurdaar lahayn haddaad ka faa'iidaysan weyso Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu kula xisaabtamayaa. adduunkana sidiisana mataqaanaa aniga waxaan ku nahay musaafir ayaan ku nahay. dad walbo mataqaanaa ii sheegay waxaa fiican, qof walba waxaa fiican inuu Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka cabsado oo khayrka uu ku dadaalo, xumaanta uu iska reebo, zinada iyo munkarka iyo shirkiga inuu iska reebo. marka walaalayaal bisha qeyraysan mar walbo intii ka dhiman mar walba ku duceyso inuu Ilaahay nabad iyo caafimaad ku gaarsiiyo. haddii Ilaahay ku gaarsiiyo bisha Ramadaan oo barakeysan, Ilaahay hadduu ku gaarsiiyo Ilaahay dembi dhaaf weydiiso. Ilaahay adoo rabbi waxaan mataqaanaa i soo gaarsiiyay waqtigan, Ilaahay adaan kugu mahadinayo, adaan kugu shukrinaya. marka walaalayaal waxaan leeyahay aniga uma soo fadhiisanin meeshan maanta inaan mataqaanaa iska hadlo, laakiin waxaan jeclaystay kelimadda nasteexada ah ama aan faa'iido ii tahay idinkana faa'iido inay tahay inaan ii sheego. walaale adduunkan sidiisa waa aragteen, waxaa laga qaadanayaa karfan cad ayaa ka qaadanaysaa. karfantaas ayaa mataqaanaa ii sheegay haddaad hanti lahayd, haddaad guryo aad lahayd, haddii gawaari aad lahayd, waxaad ka qaadanaysaa karfantaas cad ah. xaaskaaga ilmahaaga adoo ujeedada ayaa laga dhaxwadayaa.
marka walaalle waxaan mataqaana ii sheegay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa loogu dhowaan karo mar walbo inuu ilaahay diintiisa laga shaqeeyo, inuu khayrka lagu dadaalo, xumaanta la iska dhaafo, bisha qeyraysan soddonkeeda la soomo. qofka bini aadanka uu cudurdaar uu yeelan karaa, xanuun waxaa jira qofka bini aadanka hataa uu la soomi karin, taas ilaahay subxaanahu watacaala asaa la xisaabtama, hadhow uu qaleynaya soonka dib ayuu ka qaleynayaa. laakiin qofka ilaahay caafimaad siiyo soonka cudurdaar ma noqdo. cudurdaarna wuxuu noqdaa qofka xanuunsan oo xanuun zaa'id haayo oona soonka kari karin, qofkaas ayaa la dhihi karaa cudurdaar asaa mataqaanaa mar walba uu sheegan karaa oo gadaal uu ka qaleyn karaa soonka. marka insha allah tacaala tobanka dambana leylatul qadriga tobanka dambana maasha allah qof walba ha ku dadaalo, qof walba ha ku dadaalo tobanka dambana, waayo soonka sidiisa dhan ajirkiisa lama soo koobi karo. waayo haddii mar a qalbigaaga aad gelisid aad dhahdid ilaahay adoo weyne waaxide, ilaahu adoo qafuur raxiim, ilaahu adoo isku kaa xire, bisha qeyrasneed waan sugaaye waqtigeyga inaan geliyo ilaahay subxaanahu watacaala. haddii lama baahna qof istatus, qofka istatuska ilaahay subxaanahu watacaala wuu ka caroodaa. ilaahay subxaanahu watacaala qofka istatuska ah ilaahay ma jeclo. bini aadan ha istatusin. ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu kusoo faray nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam, wixii loo soo dhiibay diinta loo soo waxyooday ku dhaqaaq, ilaahay dartiisa wax walba u sameey. kalaamka ilaahay haddaa qaadaysid, haddaa kitaabka kala furaysid, qulubtaada qalbigaaga waa inaa mataqaana marka hore uu ku jiraa, inay kaa soo go-daa, ma fahantay? marka sadaqada sidoo kale haddaa baxsanaysid waxaa lagu dhahay markaa sadaqada aad dhiibaysid gacantaada bidix iyo arkin ka qari. sadaqadana waa muhiim. qofka bini aadanka oo sadaqada baxsadana ajri xasanaad ayuu helayaa, ilaahay wuu u dambi dhaafayaa. masaakiinta oo la afuriyo, maskiinta oo waxba haysanin oo sooman aad afurisid, haddii ilaahay wax uu ku siiyo, oo haddii dadka masaakiinta aad dhaantid haddaad afurisid way kasii wanaagsan tahay, way fiican tahay. ilaahay subxaanahu watacaala wuu ku dambi dhaafayaa. haddaa sikidaada aba sikida lagugu leeyahay inaad bixisid waaye. marka walaalayaal run ahaantii aniga sidaan u nahay islaam afka keli ayaan ka sheeganaa islaamnimada. waxaa loo baahan yahay qofka bini aadanka insaanka ah islaamnimadiisa inuu dhabeeyo oo dhab ka dhigo, inuu ilaahay ka cabsado. ilaahay subxaanahu watacaala waa inaad ka cabsataa. waxa walba aad sameynaysid ilaahay dartiis waa inaad u sameysaa. waxaad baxsanaysid ilaahay dartiis waa inaad u baxsataa. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryeynaa dambigeena iyo dunuubteena ilaahay inuu dhaafo.